guurku waa yaraaday hadda aad buu guurku u yaraaday sababta yaraynaysana guurka waxa weeye laba qolaba sabab ay u tahay qolada laga guursanayo iyo qolada wax guursanaysa sabab ay u tahay qolada laga guursanayna sabab ay u tahay oo way adkeeyeen oo kharashkii guurka hadii ay tahay gogashii guriga la goglayay hadii ay tahay xafladihii la dhigayay arooska hadii ay tahay maxaan ku yiraahdaa meherkii iyo meelaha lagu dhigayo de qofkiiba islaantii wuxuu gaarayaa isagoo waxba la noolayn shilinba aan ku harin buu gabadhi gaarayaa ninkii wuxuu ku biishaayo reer ku dhaqaa ninkii la soo furay waxba lama noolaba marka waxay noqotay in dad badani ay ka cararaan guurkii way qofkii itaaluma hayo dadku way iska masaakiin waxa laga yaabaa inuu qofka dadaalo ee balwad ka badbaada inuu xogaa mushahara meel ka qaato 3-4 inuu qaato saddex afarta boqol hadii wax ka weyn markuu guursado leeyahay $15,000 baad u baahantay guurkaaga ama $10,000 xaguu ka keenaya ninkaas mas'ala aad u adag xaga kalena uu ka adkaaday oo gabdhihii la guursanayay nooc waxaad moodaa hadda inuu noqday meherkii nooc suufaan ah aniga intaas la igu meheriyay heblaaya intaas la igu meheriyay waa in inta la igu meheriyaa mushkilad weyn bay arintaasi noqotay oo maaragtay horta bal dadka dhagahooda iyo indhahooda ha arkeen alla daawado halla maqlo waxa lagu meheriyay 100 garaam oo dahaba waxa lagu meheriyay $200 garaam oo dahaba waxa lagu meheriyay $10,000 $10,000 sax maaha marka hadii guurku yaraado oo lagu dhici waayo tarantu way yaraanaysaa oo dadku taranta maanta waad aragteen wadamadan gaalada ee caalamka jooga aad waxay uga qaylinayaan taran yaraan bay aad uga qaylinayaan waxuntigan ay daldalayaan warshadihii iyo wadankii wax uga shaqeeyay laayiin waayo waxay soo gaarayaan male dadkii qof buu leeyahay ka ugu badan baa laba leh wixii kale eeyo iyo bisaday dhaqanayaan waxba guursan maayaan de marka qof iyo labo maxay wadadan ka qaban kartaa taas marka waxay keentay in dawladuhu ay caloosho shaqaystayaal kireystaan oo shaqaale ajnabiga keensadaan oo xuntin badan qaataan mushkilad badan timaado laakiin hadii qoys waliba intuu guursado carruur badan dhali lahaa dhibaatada waa laga bixi lahaa marka mushkiladaasi waynu soo gaadhay inaga guur yarida ah zinaduna waa badanaysaa dayucuna waa badanaya sida awgeedna mashaakilaadka waxa kamida awlaad garacya inay bataan umada dhexdooda waa lagu halaagsamaya waxaan u baahanahay oo ku talinaynaa in labada qolaba ay guurka fudaydiyaan qolada laga guursanayo ee gabdhaha iyo dadka waliga u ah iyo hablaha la guursan